madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa axadii sheegay in Faransiisku uu joojinayo iskaashiga militari ee uu la leeyahay Niger oo uu 5 oo askari ka saaro waddanka Afrika dhamaadka sanadka kadib afgambi militari oo halkaasi ka dhacay bishii Luulyo. Talaabadan ayaa dhabarjab ku ah howlgallada ka dhanka ah argagixisada ee Franka ee Sahel iyo saameynta Faransiisku ku leeyahay gobolka, laakiin Macron wuxuu sheegay in Faransiisku aanay afduub u haysan kooxaha xagjirka ah. Faransiiska waxa ay go'aansatay in ay u yeerato safiirkeeda oo ay joojiso wada shaqaynta militari ee ay la leedahay Niger, ayuu Macron ku yiri waraysi uu siiyey telefishinada Faransiiska ee T1 iyo France 2. militariga Niger ayaa soo dhaweeyay ku dhawaaqista waxayna sheegeen inay muujinayso talaabo cusub oo loo qaaday dhinaca madaxbannaanida dalka. ciidamada imperialka iyo kuwa cusub ee gumaystaha ayaan laga soo dhaweynayn dhulkeena qaranka, waxaa mar horeba bilaabmaya xilliga cusub ee iskaashiga oo ku dhisan ixtiraam iyo madaxbannaani, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. bil kadib afgambi, xaaladda Niger waa mid aad u xun. Eber 3-5 ka bixida buuxda dhamaadka sanadka. Macron wuxuu sheegay in iskaashiga militari ee Faransiisku uu dhamaaday, ciidamada Faransiiskuna ay ka bixi doonaan bilaha iyo toddobaadyada soo socda, iyagoo si buuxda uga baxay dhamaadka sanadka. Toddobaadyada iyo bilaha soo socda waxaan la tashan doonaa kooxaha ka soo horjeeda sababtoo ah waxaan rabnaa in arrintan si nabad ah loo sameeyo, ayuu raaciyey. Faransiiska waxa uu Niger ku hayaa ilaa 5 oo askari, taas oo qayb ka ah jihaad diidka la geynayo gobolka Saaxil. Hogaamiyayaasha militariga Niger ayaa u sheegay safiirka Faransiiska Sylvain Ite inuu ku qasbanaaday inuu dalka isaga tago kadib markii ay afgambiyeen madaxweyne Mohamed Bazoum 6 Juli. laakiin 4 saacadood oo kama dambays ah oo uu ku baxayo oo la soo saaray bishii Agoosto ayaa la soo dhaafay isaga oo weli jira, iyada oo dowladda Faransiisku ay diiday in ay u hoggaansanto ama ay u aqoonsato nidaamka militariga mid sharci ah. Niger, cunaqabataynta amni darrada ayaa caqabad ku ah dadaalada gargaarka qaramada midoobay. Bazoum ayaa lagu wargeliyey go'aanka Paris. Macron waxa uu sheegay in uu weli u arko in Bazoum si dimuqraadi ah loo soo doortay oo hadda ay maxbuus u hayaan hogaamiyaashii afgambiga, in uu yahay hogaamiyaha sharciga ah ee waddanka oo uu ku wargeliyey go'aankiisa. waxaa loo beegsaday afgambigan sababtoo ah waxa uu waday dib u habayn geesinimo leh, iyo sababtoo ah waxaa jiray deegaan u badan qowmiyadeed oo badan iyo fulaynimo siyaasadeed oo badan, ayuu ku dooday. gobolka Sahel ee saboolka ah ee koonfurta Saxaraha ayaa waxaa soo food saaray wax uu Macron horay ugu yeeray afgambiga faafay sanadihii u dambeeyey, iyadoo maamuladii militariga ay bedeleen dowladihii la soo doortay ee Mali, Burkina Faso iyo Guinea iyo sidoo kale Niger.